sheekada howlgalkii Mareykanka uu sheegay inuu ka fuliyo gudaha dalka Iran ayaa markan wixii qaar ka mid ah warbaahintu ay soo bandhigayaan macluumaad shaki badan dhalinaya oo ku saabsan howlgalkaasi kaliya inaan la doonaynin in askari lagu soo furto. Waxaana la sheegay howlgalkaasi in uu ahaa dabool la doonayo in lagu qariyo fashil military oo weyn oo Mareykanka uu wajahay xilli la doonayay in la soo xado uraniumta dowladda Iran ay bacrimisay iyo awoodda dowladda Mareykanka oo la wiiqay iyo khasaaraha soo gaaray xilli Mareykanka dhankiisa uu doonayo Kurdiyiinta in dagaal sokeeye la soo geliyo oo dhanka dowladda Iran laakiin hubkii iyo wax walba oo la siiyey ay iyaga ay keedsadeen. Marka la eego macluumaadka hadda warbaahinada qaar ay baahinayaan howlgalka badbaadinta ee la doonaya in askarigani lagu soo badbaadiyo caadiyan uma baahnayn baa layiri awood ciidan oo intaas la eg in ka badan 200 oo askari diyaaradaha dagaalka ee muhiimka ah kuwa xamuulka qaada ee C-130 loo yaqaano iyo diyaaradaha kale ee Mareykanka u adeegsada sida helikobtarada culus nooca Chinook loo yaqaano iyo kuwa kaleba. Laakiin ujeedadu waxay ahayd baa layiri in kaydka uranium ee ugu weyn ee dowladda Iran oo 60% gaaraya ama 440 kilogram gaaraya in laga soo qaado gobolka Asfahan oo dalka Iran ah. Warbixinadu waxay tilmaamayaan in duuliyahan uu ku dhacay sida la sheegay meel ka duwan halka howlgalka ay ciidamada dowladda Mareykanka ay ka fuliyeen maalin ka hor. Waxaana la sheegay ku dhawaad 400 ilaa iyo 300 kilomitir qiyaasi inay isu jiraan halka askariga uu ku dhacay iyo goobta howlgalka laga fuliyay. Inkastoo markii dambe howlgalka badbaadinta askariga la sheegay in loo weecday. Laakiin bilowgii waxa la doonayay in uraniumta dowladda Iran la soo qaado. Howlgalku wuxuu ahaa isku day Mareykanka uu ku fashilmay oo lagu doonayay in ciidan qaas ah oo nooca Delta Force loo yaqaano iyo ciidanka badda ee sida gaarka u tababaran kuwaas oo tababar u leh la tacaalida waxyaabaha nuclear-ka ah in ay soo qabsadaan ama ay soo qaataan kaydka uranium ee dowladda Iran oo la sheegay ugu yaraan in lagu tuhmayo xarunta nuclear-ka ee magaalada Asfahan gaar ahaanna gudaha godadka dhulka hoostiisa ah. Goobta ay ku degtay diyaaradda nooca C-130 loo yaqaano waxa la sheegay qiyaasii 37 kilomitir inay u jirtay xarunta nuclear-ka ee Isfahan. Laakiin sida qoraalka lagu sheegay Iran feejignaan weyn ayay ku jirtay waxaana ay beegsatay diyaaradda C-130 iyadoo weli dhulka taala xilli askarta isku dayeen in la gaaro hadafka ugu dambeeya ee howlgalka. Markii qorshihii uu fashilmay oo diyaaraduhu ay burbureen howlgalkii weerarka wuxuu isu bedelay baa la sheegay howlgal badbaadina oo si weyn xoogga loogu saaray sidii loo badbaadin lahaa ilaa 200 oo askari oo la sheegay goobta inay ku xayirmeen. Si loo daboolo arrintan marka Mareykanka wuxuu si xoog leh u duqeeyay aagga isagoo marmarsiyo ka dhigay raadinta duuliyaha maqan wuxuuna isticmaalay diyaarado kale sida C-130 iyo kuwa kale oo ciidanka lagu daadgureeyo. Markaas waxaaba halis gashay nolosha 200 oo askari oo kale oo dheeraada. Warbixintu waxa kale oo ay sheegaysaa laba arrimood oo muujinaya in sheekadu aysan ahayn mid sax ah. Tusaale, ilaa iminka lama arkin wax waraysi ah oo lala yeeshay duuliyihii la sheegay in la soo badbaadiyay. Ilaa iminka waa uu aamusan yahay. Howlgalkaasina madaxweyne Trump oo 70 saacadood aamusnaa ayuu ka soo hadalsiiyay. Taasi waxa loo fasirtay inay jirto dhibaato weyn oo la qarinayo intaa kadib. Warbixinadu waxa kale oo ay sheegayaan in Mareykanka uu qiray in hub si qarsoodi ah u geliyo gudaha dalka Iran si loogu dhiirigeliyo gacdoon gudaha ah. Laakiin qorshayaashu way fashilmeen sababtoo Kurdiyiinta waxay hubkaas u muuqanayaan inay iyagu ay keedsadeen oo ay diideen inay howlgalka kaga qayb galaan. Hanjabaadaha ka imaanaya madaxweyne Trump ee ah in la burburinayo kaabayaasha sida buundooyinka, korontada iyo goobaha kaleba waxay u muuqanayaan baa layiri in loo fasirinayo madaxweyne Trump inuu doonayo inuu qaaliyeeyo shidaalka caalamka si shidaalka Venezuela qiimo badan uu ugu helo oo ilaa $250 haddii fuustadii ay gaarto isaga ayaa dhaqaale badan halkaa ka faa'iidaya inkastoo taan cadeyn loo hayn. Marka hadda waxa soo baxaya shakiga ah in howlgalkii askariga la doonayo in lagu badbaadiyo in la doonayo in lagu soo qaato uraniumta dowladda Iran ee bacrimisay howlgalkaasina uu fashilmay inkastoo Mareykanka iyo Iran aysan arrintan aysan ka hadlin ilaa iminkan aan annaga wax cadeyna u hayn marka laga yimaado falanqaynta iyo doodaha ay aadka uga qayb galayaan siyaasiyiinta iyo wariyaasha kala duwan ee reer galbeedka kuwaasoo aad u falanqaynaya macluumaadkan. Haddii xogo kale ay ka soo kordhaan arrimahan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa. Dhinaca kalena sawirro iyo muuqaalo la soo bandhigo oo laga helay kaamirooyinka qarsoon ama kaamirooyinka amniga ee gudaha Israel ayaa muujinaya waxyeelada weyn ee la gaarsiiyay gunta hoose ee Israel si gaar ahaaneed dukumiintiyada ama muuqaalada ay duubeen kaamirooyinkan xilli magaalada Tel Aviv iyo magaalooyin kale waxyeelo weyn ay gaartay inta dagaalka uu socday. Inta ugu badan muuqaaladan aad bay u adagtahay inaad ka hesho dhanka iyo warbaahinta maxaa yeelay Israel aad ayay u xakameysay cid kasta oo faafin karaysa muuqaalada Israel ee gudaha ah.
dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga Israel ayaa goordhow wuxuu daha ka qaaday in ay beegsadeen mid ka mid ah warshadaha kiimikada ugu weyn ee dalkaasi Iiraan. warshadan oo la sheegay inay ku taalo magaalada lagu magacaabo Asuuliyah oo ka tirsan gudaha dalka Iiraan. wuxuu sheegay warshadan in 50% mas'uul ay ka ahayd wax soo saarka gudaha ee dalkaasi Iiraan. saacadii ugu horreeyay maanta ayaa duqeymo culus waxaa laga fuliyay gudaha Iiraan iyadoo warshado la beegsaday, waana taasi mid keenaysa cabsida ah in qaar ka mid ah warshadaha muhiimka ee gobolka ku yaal in la beegsado. dowladda Ruushka waxay digniin weyn ay ka soo saaraysaa xaaladda gobolka. afhayeenka madaxtooyada dowladda Ruushka ayaa sheegay gobolka inuu gubanayo, caqabadaha ka dhalanayana ay tahay kuwo aan la mahdin doonin marka la eego howlgallada culus ee Mareykanka iyo Israel ay ka fulinayaan gudaha Iiraan. waxyaabaha ka soo kordha macluumaadkan barnaamijyadeena kale ayaan kuula wadaagayaa insha Allah.